تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان كي كهري وحن كو قادناي example كميدا example aan sheegnay inaan sharaxi doono. Hadda waxaan sii gudbeynaa haduu Ilaahay yiraahdo example kii labaad oo waxyaabaha noola diray waxay ahaayeen maalintii casharkii ugu dambeeyay saddex example. Mid koowaad cos 15 waan ka shaqeynay. Waxaa maanta casharkan aan uga hadli doonaa example kan B iyo example kan C. Labadaas xabaan ka shaqeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo. Okay, example kan su'aasha B ah aan hal mar ka wada shaqeyno marka idinka si fiican ila soconaya haduu Ilaahay yiraahdo. Okay maxaa ujeedaa horta waxaa ujeedaa cos 87 cos 93 minus sin 87 sin 93 boos kasta 87 booskiisa maxaa waaye waa A 93 na B itaan waa cos A cos B minus sin A sin B. meeshaan tani waa right side left side muxuu ahaa hadii dhanka qaybtan plus minus ay tahay left side waxaan soo dhahnay waa plus hadii dhankan plus noqoto right side kan waxa la plus ay noqotana left side ka minus ah saadarteeda cos A cos B minus sin A sin B. Okay qaacidada u eg tahay aan hal mar wada aragna marka. Okay meeshaan waxa fiirisaa hadda labadan soo isku mid maahan cos A cos B minus sin A sin B iyo cos 87 cos 93 minus sin 87 sin 93 marka midaan qaacidada maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa cos A plus B saadarteeda 87 iyo 93 laba isku daray ka imaado mise laba kala jaray waxay ka imaado laba isku daray maxaa laba isku daray ka imaado oo A plus B ah 87 ugu daray 8 ugu daray 3 waa sababtu maxay tahay calaamada minus ay cadeynaysa calaamada minus ah hadii dhaxdan taalo dhanka kale waa isku darid waay oo su'aashan mid hore way kala duwan yihiin mid hore waxa lagu siinay hal number tusaale cos 93 ayaa lagu siinay iyadii ayaad xaladahay kala bixinaysa simplify ee aheeday tanna maxaa waay tan waa isku soo aruurinaysa marka tani waa isku soo aruurinaysa oo waxaad u celinaysaa sidii haday su'aashan ku weydiinayo kale aad u celinaysaa tan dib loo celinaya marka dib loo celinaya hal number la rabaa in la soo saaro. Okay aan ka socono marka waxaan leeyahay marka waxay ka imaaday cos A plus B ka imaaday aan dhaha marka waxay ka imaaday cos aye A booskeeda ii taagan so 87 maahan 87 ka dhig marka cos waxa tiraahdaa 87 plus haye B ii taagan booskeeda so 93 maahan 93 de cos 87 plus 93. Okay cos 87 plus 93 aan isku darsado marka 87 93 ku daro imisa da 87 93 ku darsado maxay soo baxayana 180 soo maahan cos waxa tiraahdaa 180 ayaan haystaa cos 180 degree soo maahan cos 180 degree calaamad degree aan saarto haye jadwalka dib u laabo cos 180 meeqo la mid ahaa cos 180 waxa la mid ahaa minus 1 dib u laabo jadwalka waxa la mid ahaayay minus 1. jawaabteedii example ka labaad meesha aan ka gudbo example kii saddexaad su'aasha saddexaadna waxa la yiri cos 5 by over 2 ayaa la rabaa inaad ka shaqeyso oo halkan xabad lagu siiyo waxa laga wadaa adiga kala balbalaariyo adiga badi expand ku sameey oo qayb wuxuu ku imaan karaa inaad expand ku sameyso ama inaad simplification ku sameyso. Simplification maxaa waaye waad badinaysaa hadda simplification hadda ku sameeyna oo cos 5 by over 2 waa expand waa hal xabo waan badinaya marka waxaan ka dhigaa cos A cos B saas oo kale ayaan u sameeynayaa ugu dambeyn hadda hal number keeni doona ana badin doona laakiin markii cos A cos B minus sin A sin B oo kale lagu siiyo waa inaad yareysaa cos hebel waa inaad soo saartaa ugu dambeyn hadda jawaabta soo saartaa sidaas ay kala yihiin. Hadda cos 5 by over 2 ayaa la ii diray bes ha ku wareerin marka 5 by over 2 waxaa lagu wadaa ereygan by wuxuu la mid yahay 180 ku dhufo laba u qeybi si aad qiimaha ogaato haye samee scientific la soo bax
هيا aan fiirinaba maxaan leenahay 5 lagu dhuftay 180 okay maxay soo baxay 900 loo qaybiyay markaa loo qaybiyay maxaan u qaybinaa 2 ujeeda 2 qayb maxay soo baxay markaa 450 okay waxaan haystaa 450 waxaan aadayaa marka waxaan leeyahay 450 iyadu iyo la mid tahay عفوا سؤال بوغان ayaa qaldan oo waxay tahay meeshan 5/2 maan waa 5/2 alif saadarteed aan jawaabta ku laabto marka saadarteed aan jawaabta ku laabto scientific aan soo baxo 450 kana iska joojiyo waxaan leeyahay meesha laga tirtiraa okay waxaad tiraahdaa marka 5 lagu dhuftay bay muxuu la mid yahay 180 maahan 180 leh haye equal loo qiibi 12 rabaa inaan dhaho maahan 2 maahan waa error iga dhacay waa 75 okay waxaan raadinayaa marka anoo is wareerininba 75 tan laba number hadii la isku daro 75 maxaa waaye dabcan horeyaan soo aragnay okay aan la soo baxbal jadwalkii fiirso meeshan maxaad u jeedaa meeshan 75 wuxuu ka imaaday 30 iyo 45 la isku daray Soomahan wuxuu ka imaaday 30 lagu daray 45 waxaad fiirisaa numberskan wuxuu ka imaaday marka 30 lagu daray 45 okay 30 yuu la mid yahay haddii radian ahaan u qor haddii doon 30 ka ahaan u qori karaa laakiin radian ahaan u qorto maadaama koodi su'aasha la weydiinay radian ahaan u qornaa degree markuu yahay 30 degree 45 degree waa degree markuu yahay pi over 6 pi over 4 pi over 3 na iyo su'aasha hadii la weydiiyo 5 pi over 12 waa radian saadarteeda laba mid ka doona u qori karaa marka isaga maadaama uu koodi radian ahaan i weydiiyay kan inuu xisaab ahaan aan soo saartay 30 degree inuu yahay radian ahaan aan ugu shaqeys marka booskii 30 booskiisi by over 6 aan geliyo 45 meesha gelilahayn by over 4 aan geliyo saadarteeda waxaan leeyahay marka waxay ka imaaday waxaan dhahayaa cos aan leeyahay cos haye 5 by over 12 ka muxuu ka imaanahay 75 muxuu ka imaanahay 30 iyo 45 okay 30 lagu daray 45 aan rabaa inaan dhaho 30 yaa ila mid ah marka radian ahaan u fiiriyo 30 waxa ila mid ah by over 6 Soomahan by over 6 aan ku badasho aan dhaho by over 6 aan leeyahay by afwan by over maxay by over 6 lagu daray 35 ayaa waxa la mid ah ama waxaan rabaa 30 waxa la mid ah by over 6 oo sidee ula mid noqotay 180 waxa u qeybisaa 6 inta uu sameeyo jawaabta ogaan doona by over 180 soo kuma diin 6 soo ma 6 maaha 180 6 u qeybi waxa laga rabaa inay ku imaado maxay 30 inay ku imaado okay kani 30 waan arkay 45 maxay ila mid tahay iyadana 45 waxay la mid tahay iyadan aan soo fiir waa inaad xifdisanataa haye 45 waxay la mid tahay by over 4 okay المهم ما هنا حدث وتفهمي كرتا adiba oo ereyga waxa la dhahayay 45 toki imaade 180 number hadii loo qeeyo 45 imaanayo waa raadin kartaa oo waxaan leeyahay marka by 180 waan ku dhahay by haya 4 u qeyb waa imis 180 4 u kala qeybi waa 45 okay soo xira marka meesha markaan taagana waxaan leeyahay hadda waxaan haystaa cos a plus b Soomahan a igu taagan by over 6 b igu taagan by over 4 okay aan ku badasho bas cos a cos b horta qaacidada waa tee cos a plus b maxay qaacidada cos a cos b minus sin a sin b Soomahan sidaas bay ahayd dabcan okay qaacidada aan soo gashay saad u arag okay meesha bal fiiri
cos A plus B so cos pi over 6 plus pi over 4 so isku mid maahan ha qaacidada qaadana marka cos A cos B laga jaray sin A sin B soo maahan haye sidaan sameey marka waxay ma baahane equal cos A booskiisa ay u taagan so pi over 6 maahan A booskiisa waxay u taagan pi over 6 okay pi over 6 dhaha marka pi over 6 waxaa tiraahdaa lagu dhuftay cos ya ii taagan booska b ya ii taagan so pi over 4 maahan pi over 4 isagana soo qaado waxaa tiraahdaa pi over 4 dheh okay maxaan leeyahay marka intaa markaan haysto waxaan leeyahay okay cos A waxaan ku bedeshtay cos pi over 6 cos B waxaan ku bedeshtay cos pi over 4 calaamadda minus ma soo qaata marka aan dhaha marka minus ka soo qaado minus haye waxaan rabaa hadana sin A sin B inaan dhah eeda pi over 6 un ku bedelo B-dan waxaad ku bedelataa pi over 4 wax kale waa sameyn adigu haye waxaan leeyahay sin pi over 6 sin pi over 6 maxaa ku dhufsan sin haye pi over 4 oo B ah soomaan booska B booska maxaan u qaatay pi over 4 aan ku bedeshtay iyadana pi over 4 waan gartay intaa aad baan u gartay haye waxaan leeyahay markaa special angle-iska aan ku laabtay coska pi over 6 meeqoo yahay qiimaha uu yahay pi over 4 kana qiimaha uu yahay waa maxay okay waxaa haboon inaad kor ka taqaano marka coska pi over 6 wuxuu la mid yahay radical 3 over 2 aan dhaha marka radical soo saar horta radical 3 dheh maxay radical 3 over 2 samahan ha haye cos pi over 4 wuxuu la mid yahay cos pi over 4 45 yani cos pi over 4 maxaa soo 45 maaha 45 maxay la mid yahay radical pi over 2 okay lagu dhuftay dhe marka waxaan ku dhufanayaa radical pi over 2 waxaan rabaa radical 2 over 2 waxaan leeyahay marka radical 2 over 2 okay radical isoo qabo radical haye 2 over 2 inta in la socdaan rajeynaya haduu ilaahay raayo haye taa waxay ahaaday coska haye meeshan waxay soo hartay sin pi over 6 sin pi over 6 muxuu la mid yahay sin pi over 6 wuxuu la mid yahay 1 over 2 waa inaad ragi tiraahdaa sin pi over 6 wuxuu la mid yahay 1 over 2 waa inaad dhihi kartaa oo sin pi over 6 waa imis 30 maaha sin pi over 6 wuxuu la mid yahay 1 over 2 sin pi over 6 wuxuu la mid yahay 1 over 2 okay lagu dhuftay haye sin pi over 4 na sin pi over 4 waa radical 2 over 2 isagu waa isku wada mid sinkiisa iyo coskiisaba waa radical 2 over 2 waa markii pi over 4 uu yahay ama 45 labadaba isku mid okay aan dhaha times aan dhaxaysiyo cafwan meeshan times aan dhaxdooda taalo isku dhuftay okay waxaan rajeynayaa inta in la ii fahmay inta markaan taaganahay waxaan dhihi jiray sareeyo ku dhufo hooseeyo ku dhufo sida aan sameeyo marka radical yaa isku dhacay radical 6 maxay iyo radical 2 labada sareeyo isku dhufo labada radical maxaan dhahay marka iyagu mid ka qaado tirada isku dhufo labada radical mid ka qaado tiro isku dhufo okay labada radical mid aan ka qaato horta waxaan leeyahay labada radical mid iga soo qor labada radical mid aan ka qaato haye laba saddex ku dhufo waa imisa laba saddex ku dhufo waa 6 haye hooseeyo ku dhufo laba waxaad ku dhufataa labadan hoose oo isku dhufo waa imisa soo 4 maahan ha haye calaamadda minus ta qoro minus waxaad samaysaa hadana 1 waxaad ku dhufataa radical 2 waa imisa de 1 waa asal madoorsho radical 2 baa soo baxaya haye okay 1 hadii lagu dhufto radical 2 over 2 radical 2 hadii 1 lagu dhufto waxa soo baxaya soo radical 2 maahan okay aan dhaha marka waxaan leeyahay radical 2
haye laba ku dhufan waa imis marka labada hoose isku dhufan soo afar maaha inta waan gartay waxaan leeyahay marka inta wixii la siimid tahay marka meesha marka taaganahay waxa ii yaala jajab kala jar ah hoose isku mid yahay soo maaha labada hoose mid ka qaado korna maxaa waay kala jaro iyaguma kala jarmaan sidoo soo qaada marka okay labada hoose waa afar hal afar ka soo qaado waxa ku haray labada sareeya iyagu sareeyaasha maxaan dhahnay iyagu isku mid ma ahan ma kala jarmi karaan saadarta calaamada ka jirtan umoodi labadaas sidoo soo qaad haye waxaan leeyahay radical 6 minus maxaan dhahayaa radical 2 okay inta buu igu egyahay labada example meesha inoo joogo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wixii su'aal ah waxaad igu soo qori doontaa commentiga si aan kaaga jawaabo intii aan awoodo haduu ilaahay yiraahdo